galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggan internetka ee idulfidriga. hogaamiyaha sare iiraan ayatullah cali khamnei ayaa arbacada maanta mar kale uga digay israa'iil in lagu ciqaabi doono weerarkii cirka ee dimashq ee lagu dilay 7 ka tirsan ilaalada kacanka islaamiga ee iiraan oo 2 ka mid a ay ahaayeen jenaraalo sare. wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil kats ayaa si degdega qoraal ku qoran luqadda farisiga usoo dhigay bartiisa x. wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa qoraalkiisa ku sheegay in haddii ay iiraan soo weerarto israa'iil ay markaasi ciidamada israa'iil ka jawaabi doonaan oo ay weerari doonaan gudaha iiraan. khamnei waxa uu sheegay in weerarkii 1 abriil kaas oo dhulka la simay dhismaha 5 dabaq ah ee qunsuliyadda iiraan ay ku taallay caasimadda suuriya ee dimashq uu jebiyey heshiisyada caalamiga ah oo dhigaya in aan lagu xadgudbin xarumaha diblomaasiyadda. yaxya raxiim savazi oo ka mid ah la taliyayaasha sare ee hogaamiyaha iiraan ayaa axaddii ka digay in safaaradaha israa'iil ay beegsan doonaan iyagana. israa'iil ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay xoojinayso difaaceeda islamarkaana ay joojinayso fasaxyadii ay qaateen cutubyada ciidanka kuwaas dagaal kadib hanjabaadaha iiraan kadib. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ireland ayaa sheegtay in 2 toddobaad ee soo socda ay usoo bandhigi doonto xukuumadda soo jeedin rasmi ah oo ku saabsan aqoonsiga dowladda falastiin. wasaaradda arrimaha dibadda ee ireland ayaa xustay in dib u dhigista aqoonsigu aanay ahayn wax lagu qanci karo ama la difaaci karo. dowladda ireland ayaa hore u sheegtay in aanay wax diidmo ah ka qabin mabda ahaan in ay si rasmi ah u aqoonsato dowladda falastiin. wasiirka arrimaha dibadda ee ireland michael martin ayaa salaasadii shalay sheegay kaga dhawaaqay magaalada dublin in dalkiisu uu doonayo inuu u dhaqaaqo aqoonsiga dowladda falastiin toddobaadyada soo socda. wasiirka arrimaha dibadda ee ireland ayaa sheegay inuu golaha xukuumadda u gudbin doono soo jeedin rasmi ah oo ku saabsan aqoonsiga falastiin. xildhibaanada baarlamaanka midooda yurub ayaa arbacada maanta u codayn doona wax kabedel lagu sameynayo siyaasadda magangelyada ee midooda yurub. tallaabadan ayaa adkayn karta in dadka sharci darrada ah ay u kala gudbaan xuduudaha yurub. arrintan ayaa u baahan in dhammaanba dalalka midooda yurub ay isku mowqif ahaadaan. heshiiska socdaalka iyo magangelyada ee cusub ee midooda yurub waxaa ka mid a 10 qodob oo laga soo shaqeeyey muddo badan oo sannado ah. ujeedada xeerkan cusub ayaa ah in wadamada midooda yurub oo leh dano kala duwan ay isku mowqif ka ahaadaan arinta socdaalka. intaasna dhegeystayaal waxaynu widil warkii caalamka. ciid wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. magaalooyinka waaweyn ee geeska afrika waxaa maanta si isku mid ah looga dabaaldegay munaasabadda ciidulfidriga. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dadka soomaalida la hadlay ayaa xalay sheegay in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay islamarkaana aanu marnaba gorgortan ka geli doonin madax banaanida soomaaliya. magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maanta si weyn ayaa looga ciidayaa, waxaana subaxii hore dadku ay isugu soo baxeen masaajidda iyo fagaarayaasha ku yaalla caasimadda iyagoo si wada jira u dukaday salaada ciidda soonfur. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kumanaandada maanta waxa uu kula dukaday masjidka isbahaysiga islaamka, iyadoo dad fara badanna salaada kadib ay isugu soo baxeen waddooyinka iyo goobaha lagu nasto iyagoo carruurtooda gacmaha haya si ay qayb uga noqdaan damaashaadka ciidda iyo farxadda. dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo xalay ka hadlay magaalada muqdisho
ayaa waxa uu ka hadlay qodobo badan oo la xidhiidha siyaasadda dalka, dastuurka iyo amniga. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in dowladdiisa marnaba aysan gorgortan ka geli doonin ilaalinta wadajirka iyo madax bannaanida dalka. kama geli karno wadaxaajood iyo compromise madax bannaanideenna. dal inaan nahay, dowlad inaan leenahay, caalamku inuuna aqoonsan yahay, meeshaas Soomaaliya la yiraahdo oo geeska Afrika ku taala inaan degannahay, oon xuduuda leenahay, bad iyo beri iyo maxaan ku irahdaay iyo hawo intaba inaan xuduuda leenahay. xuduudaheenaas dhexdeesa aan ku qorxoraano ama aan isku qabsan dhexdeeda inaan ku dhowrsoonahay, oon sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ku leeyahay, ma ka gelayno muxuu ahaay tanazul ma ka samaynayno. taas ciddii dalkaana horeyna waa u ballan qaadnay, waana muujinay, waa xaqiijinay inaanan taaka dalka ka mida inay baxda inaanan ogolayn, mana ogolaanaynan haddana, mana ogolaan. dadka Soomaaliyeedna ma ogola, ayagaanan wakiil uga nahay in aanan taaka dalka ka mida inaan la bixinin. dadka Soomaaliyeed wakiil uga nahay, ayagaa mandate noo sii, ayagaa noo wakiishay, ayagaan ugu dhaaranay kutubka qur-aan kariimka ah. halhayska Soomaaliya Soomaali baa leh ahaa 100% sax ah. qaar ka mid a dadkii ka qayb galay tamashlaha ciidda ee magaalada Muqdisho ayaa VOA-da u warramay, waxaana ay ka sheekeeyeen dareenkooda ku aadan farxadda maalintan iyo dabaaldegga ay qaadanayaan. maalinta ciidda Shawaal oo maanta ay kow tahay, alxamdulilah waxaana ku ciidnay si nabad ah, reen farxad ku dheen dhammaan Soomaaliya dhan. maanta hal mid la yahay oo la wada ciidaayo, aad ayaan u faraxsanaa. waxaa inta badan xiran ganacsiga ku yaala magaalada Muqdisho, iyadoo shirkadaha gaarka loo leeyahay shaqaalahooda iyo kuwa dowladda Soomaaliyaba la fasaxay si ay qayb uga noqdaan damaashaadka ciidda. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho. dhinaca kalena magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa, halkaasi oo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu salaada ciidda kala qayb galay dadweynaha reer Hargeysa. madaxweyne Biixi ayaa hadal u jeediyey ku sheegay in dowladda federaalka ay cadaawad siyaasadeed ku hayso bulshada reer Somaliland. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle. madaxweynaha Somaliland ayaa soo hadal qaaday in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mar kasta cadaawad u hayso Somaliland, islamarkaana ay ka muuqato go'aanada ay ka qaataan buu yidhi ciddii xidhiidh sarreeya oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed la samaysata Somalilan, sida uu sheegay madaxweyne Biixi. markhaatigeedana shalay baa ugu dambaysay. waa maxay? Somaliland tiraba intaana waa 3 dowladood baa la soo qaaday inay ictiraafsiyaan, ama hab maamuusa oo dowladnimo waxqabsigeeda awgeed ku ictiraafay. tii ugu horreysay geri kuna kali waahay maalintii ay barskood madaxweyne iyo qaran bixisay West Africa ku nooshay isma gaadho Afrika ku hadashaa ayaa xamar cilaaqaadku bal cadaawadna walaalka ixtiraamay ee dagaal ku qaado walaalnimada ka dooraya barskood ka qabansiyo Soomaaliya barskood ka qabansiyo ku xamar joogay iyo meel kale joogay kii ku xigay wuxuu ahaa Uhuru Kenyatta ee Kenya isla barata kuwa madaxweyne ayuu inoo damcay oo uu soo dhaweeyay Soomaaliya la ictiraaf hawl qaado cilaaqaadka xamar jirta. haddaba waa nin walaalkaa ixtiraamay oo ku soo dhaweeyey oo walaalkaa sharfay, sharaf iyo ammaan buu inaga mudan yahay. taasaa dhacda markhaataa ka wada hayda. tii ku xigtay Itoobiya soo qaaday Soomaaliya ictiraafayna. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa carabka ku dhuftay dhibaatada dhallinyarada Somaliland uu maandooriyuhu ku hayo, isaga oo ku baaqay inay muhiim tahay in waalid iyo qaybaha bulshada ee kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumaddu ay wada jir ahaan uga hortagaan wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha iyo dhallinyarada Somaliland. waxaynu u badan mukhadaraadka oo noocyo walba ah. waxaynu u baahannahay inaynu aad iyo aad arrintaa ugu dhow yeelano oonu dalka kala dagaalanno. waxaynu u socdaa waxalliyo wixii shaydaaniyad ahayd oo muddo dagaal lagu soo qaaday inay tahay nooc kastoo mukhadaraah iyo dhaqan xumo ah oo dadkeena weli la garab cararayo. intii aynu dadaalnay waalid iyo caalim iyo nin talahayo talaqabeena iyo siyaasi iyo taajir aynu isugu taagno dhallinyaradeenna mustaqbalka inaynu arrintaa ka dabargoyno oo aanay ina qabsanin. dadaalka ayaynaan ka daalay hallahooda waa qodob. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
magaalada jigjiga ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa iyaduna ka mid ahayd goobaha maanta looga dabaaldegay munaasabadda ciidulfidriga. madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa ka mid ahaa madaxda dadka kala qayb galay salaada ciidda. maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan kasoo diray jigjiga. waxaa magaalada jigjiga lagu maamuusay munaasabadda ciidulfidriga ee 1445 hijiriyada. munaasabadan ee waxaa isugu soo baxay kumanaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada jigjiga, kuwaas oo barxadda weyn ee garoonka kubadda cagta magaalada jigjiga ku tukaday salaadii ciidda kadib markii ay bulshadu soo soomeen 30kii maalmood ee bishii barakaysneed ee Ramadaan. haddaba qaar ka mid ah dadka shacabka ah ayaa dareenkooda farxadeed la wadaagay idaacadda VOA. ciid mubaarak islaamka maxameed oo dhan baan horta salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay baa mahadale, ilaahayna gaarsiiyey ciidda. halka waxaan ka salaamayaa gabadhayda oo Jabuuti joogta, Faadma Cabdifataax Aadan, Nimcaan Cabdifataax Aadan, dhammaan wada salaamaya. islaamka maxamed oo dhan waan salaamayaa. walaalahayna meel kastoo joogaan waan salaamayaa. ilaahay nabad iyo caanaha inuu gaarsiiyo ciideeda insha Allah. والله الحمد لله aad baa loo faraxsan yahay. waxaad arkaysaa ciidda in magaranaysa aad loo faraxsan yahay inaad meel kasta lagu tukanayo. xitaana waxaan kamid ahay dadkii ku tukaday xaggan laamida dib xag garoonka hor galay. marka shucuurta bini'aadanka muslimiintu aad bay u kacsan tahay. marka dhammaan muslimiinta caalamka nool waxaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay dhammaantood. ciid hore waxay kaga duwan tahay ciidan waxaad arkaysaa dadkii soo buux dhaafiyay amniga iyo magaranaysa kala dambeynta iyo deegaanka waxa ka socda ee wanaaga. marka waxaad ku dareemaysaa dadkii oo dhammaantood ka soo qayb galay ciidda. marka ciido hore waxa laga yaabaa in dadku kala hadhaan, laakiin ciidan dhammaan way yimaadeen alxamdulillah. ciidan waxyaalaha aan maaragtay ciidii kale ay ka duwan tahay waxaa ka mid ah ciidan wax kala hadhay ma jiro. hal mar la wada ciiday, si midaysan baa loo wada ciiday, nabad baa loo ciiday. alxamdulillah rabbil caalamiin ma sidaa leenahay. darteed garoonkii wuu buuxsamay. soo kulli garoonka macnaha uuna magaalada jigjiga wada qaadaynin haddana wuu buuxsamay. asagoo sidii loo soo gelayo ayaa salaadii laga soo baxay. marka waxay u muuqataa ciidani inay ciidii kale ka dad badan tahay oo dad badan oo wadanka ka maqnaa maaragtay ay ka soo qayb galeen oo maaragtay ku sugan yihiin. dhankiisa waxaa kala soo qayb galay bulshada ciidda ciidulfidriga mas-uuliyiin ka mid ahaa madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo bulshada la wadaagay hambaliyada munaasabadda ciidulfidriga. waxa uuna bulshada ku booriyey inaan laga tegin dareenkii wanaagsanaa ee iscaawinta ee bulshada dhexdeeda ah. isku soo wada duubo dadka ayaa waxaa wejiyadooda ka muuqday farxad iyo raynrayn iyagoo isugu hambalyeynayay ciid mubaarak ciidul caafiya. maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga.